بسم الله الرحمن الرحيم. سوماليلاند كلمية برعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب يا بان وقفر حسنها ما أنت برعو إلى موجسي إلى تهي هو يدي قرنكا oo iyadoo ilaalinayso oo aan looga baqayn cadow maanta waa muujiseen waana ku mahadsantihiin. qodobka labaad waxaan aad iyo aad uga xumahay inaan waqti kulul oo cadceeda aan ku soo beegmay laakiin hawsheeda lahaydoo xagga Hargeysana waa ka soo hadlay halkana waa ka soo gaadhay laakiin ilaahay daruubina siiyey. walaalayaal maanta waxaan ugu jiraa doorashada laba kala dooranaya saddex madaxweyne oo kaliya waxa la kala dooranayaa siyaasadda xisbiyada tartamaya waxa ku jira xisbi nacab u ah xisbiyada tartamaya mid bay ka muuqataa siyaasaddiisa nacayb uu u qabo qarannimada Soomaaliland inay hirgasho. xisbiga wadani toddobaadii sane u dambeysay tallaabooyinku qaadayay waxay ahaayeen kuwa ka soo horjeeda horumarka iyo qaranka Soomaaliland oo bareera iyagoo oo ay xukuumaddan hadda aan joogno annagu ay joogto dhowr bilood waxa uu ciidan geliyey buurta gacanlibaah. go'aanku ka soo saaray waxay ahayd inuu qaybaha ugu badan Soomaaliland ee u tiraayo xisbiga kulmiyo uu yidhi shirka iyaga lagu casuumi maayo gudoomiyaha markaa joogay xisbiga wadani oo Cabdiraxmaan ahaa waa qarandumis qaranka ugu qaybiyey marka uu soo saaray go'aan ah dadka ugu badan ama inta badan Soomaaliland oo xisbiga kulmiyo taageera iman maayaan shirka iyaga xafladda lagu xidhaayo markhaati ay leedahay midii hore bay ku jirtaa. tallaabo kale u qaaday Cabdiraxmaan isla sanadkaa wuxuu abaabulay jabhad oo yahdana carrada u dhiibay sanad gado way socotay oo wala waanay oo dagaal sokeeye laga warwareegay ilaa uu geeyey Soomaaliya oo qarna ciidanka geeyey muddo dheer oo dhiigbaxa oo dulqaada oo Soomaaliland oo dhammi ka bariyay warnamada hay ayaa lagu soo xilay ma caqliga xisbiga ku wadari muu ku qaloobo waxa soo dagaala waxa uu qaaday inuu dhalinyarada u bilaabo oo yiraahdo iyadoo balaayba joogin oo Soomaaliland corood ahayn soo dhiman maysaan oo siiri qaato oo afuufo oo indhaheeno shana carruurti ku la soo dagaalan maysaan soo dhigay hore maysaan balaaya may joogin mabda'a marqura kamu waan toobin hogaamiyaha maanta u sharaxa wadani ee Cabdiraxmaan meesha uu ku socdaa garan bayno waa meesha intii kale halkan maxamedka ay ka yimid way taala maanta waxa lagu tartamayaa maxaa mabda'a wadani yahay soo akhriya barnaamijka siyaasiga imika uu qoray meel ay kaga taalo waxaan raadinayaa aqoonsiga Soomaaliland soo akhriya oo soo baar hadaa ka heshaan waxa ku qoran waxaan hadal la bilaabi doonaa Xasan Sheekh وإسرافك حسن الشيخ لجسوا يا لقى قوسرين لبيه طبع سنادات بين كل من السد حياة وشر ومدى ليسة ومدى دارسة سومالي الواسط رياف أفرتشر ديك يدعى عام بوي بحسن هل يوم ما بوك بحريدنا ما معقول باين إنه برنامج حول شو ما على والبا دولة باين نودسان وين مجنادوك تير معي مركز لقى بلا شرعية ده تاريخ لنا شاف فريق صدق سعودي نجس بعمريني ما تعرف شيء يا واحد تاجن ذلك أنت عليك وأنت وصل عراضة أو كقيب قبت حسك وضري وأنا بدأت ولا حين أيه ما أنت ناحية ذلك القرى ديمقراطية وبريري دور الشقة برايا أنا العدة بريين يسوي يسكت في الأرض يعني دور السنة كلكم قاعدين هاين يعني حق الشعب كنا هاين نختار تقولنا ولي أي بلاي كانوا مقطع سياسة داس ما تودك المسيدة يا ما أنت واحد نوجهته واحد مرنا غير إسكوس وضع مساجنا لا بين نوجهته إلى إنه وضع دي مسؤول كادي وفعله حمر وبريته إيه إنه قرن مدينة أو عرب كله ما أنت سوى ما لا يوم يهلك يتاعي
aynu maanta hirgelinno oo aynaan ka daalin tusaale yar baan idin siinayaa 3 safar baan idin sheegayaa geli konaakan diyaar bay u ahayd habeenkaa inay nala gasho ictiraaf xidhiidhka xamar u geyso dagaal bay ku qaaday adduunkoo dhan bay ka dacwoysay Kenya ku xigtay Uhuru Kenyatta ictiraaf buuxa ayuu diyaar loo noqday oo miiskan uu fadhiisanay adduunkoo dhan bay xamar ku qaylisay cid walba oo yarto carabo oo masar ka mid ah taageerato xilliga loo gooyay Kenya Mareykanka inuu heshiis soo galay safarkii aanu tagnay waxa ahayd inuu berbera ciidankiisu yimaado oo la tos ciidan la sameeyo ciidanka Soomaaliland baarlamaanka Mareykanka ayaa baasgareeyay labada aqalba baasgareeyay article 25 way haddii dawladda dambe soo baxday uu horyaalo sharcigaas oo dawladdu kama diidi karto waayo waxa soo gudbiyay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka maalintii ay berbera yimaadeen ciidamada bilowgoodii waqtigii horeeyay ayaa cadawga Soomaaliland oo dhan oo uu ka qayb yahay gudoomiyaha ay waddan u doorteen baarlamaanka wakiilada Soomaaliland oo qaybta ugu way ka qaatay ayaa waxa lagu soo qaaday weerar ilaa maanta halmadi socoto xisbiga inta qaba tartanka la galayna xageebu qabanaya laba jiho kala jeedeen uu socona qarannimada Soomaaliland iyo aqoonsigeena iyo inaynu dawladeena ilaashano iyo inaynu xamar dib u barnaamijno wada taasina suulayeenaya maaha وانا aaminsanahay Soomaaliland shacbigoodu intuu taafahmo in qof shacab Soomaaliland taa maanta aqbalay mid kale ku daraya wadooto waxa jiray odayaal sabaabray oo yiri arintii ka dhacday dhagartii loo galay ciidanka booliska Soomaaliland ee toban lagu dilay 12 lagu dhaawacay wali naafo yihiin rag yiri waxaan baq bixinayaa cirro iyo inta taageersan amar heelaha warqada kala laayay mag laga bixin karo dambigooduna waa khiyaano qaran oo cidii geysatay iyo kuwii magta ka bixiyay waa laba dambiilo oo maanta gaadha maxkamadda la soo taagay khiyaano qaran bay noqonaysaa haddii taa la maqlo oo reer warbeyntu qaranka la dhageysto cidii keentay iyo kuwii galay iyo kuwa magta bixiyay soo galay intuba waa khiyaano qaran oo maalinta ay noo gaadho laga tiri doono aad iyo aad baa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi